laba PhD baan qoray oo dhameeyay labada PhD labaduba waxay ahaayeen midna badda Soomaaliya baan gooni oo xog uga saaray xagga maamulka badaha iyo kheyraadka badaha aan ka qoray marka inay ku jirto maamulka badda iyo korkeeda iyo hoosteeda intaba midna bariga Soomaaliya oo ah bariga dhulka hoostiisa dhexdiisa korkiisa iyo saradiisa intaba in marka la yiraahdo roobka qaabka loo xadayo aan kugu dhaco waxa ay tahay laba saddex siyaabood baa horta roobka loo kala dafaa waa roobka mid in la beerto oo cidaas iskood u beeratay waa beer ayagoo ay leeyihiin ayaga beertaan marka aad ma lahan midna waxa weeyaan dad roob u di'i lahaa baa laga dafaa oo laga duufsadaa oo laga dhacaa midna waxa weeyaan waa dadkaas waxa lagu sameeyaa qaab xadid ah ayagoon ogeyn baa laga xadaa midna waa la xoog midna waa xadid midna waa xeelad beerasho saddexdaas nooc bay kala yihiin waxaana jira marka qaab kale oo ku dhex jira oo la dhaho climate modification wax la dhaho oo cimilada in la bedbedelo sidii raba laga dhigo iyo markaas climate geoengineering waxa la dhaho iyadana oo qaab kale loo hindiseeyo hababkaas baa marka jiraan oo lagu dhacdhacaa waana wax cilmi ah oo jira roobka sida loo abuurto waxa weeyaan iskuulka waxa lagu dhigaa koowaad iyo labaad baa lagu dhigaa adduunyada annagu ma naqaan meesha naga martay xadista la kala xadayo waxay tahay roobkii oo hawada jooga ama u soo socda Soomaaliya mesela markuu u soo socdo badweynta Hindiya markuu roob soo marayo kale dad ba arkaya waa ka hortagayaan markay ka hortagaan waxay sameynayaan roobkii meeshii uu ku abaarnaa oo Soomaaliya ahayd baa waxaa la qaadanayaa diyaarado oo helicopter qaar ah iyo kuwa kale oo yaryar iyo kuwa kale oo la fleet drone aircrafts iyo fleet drone baa la qaadanayaa marka la qaato roobkiiba oo sidii ari socdo kala u socda ba gadaal laga gelayaa markaas waxaa lagu sii deynayaa electric wax ah electricaas oo sii deynaya waxyaalo oo kulayl iyo qabow isku dhex jira marka hore marka dambena kulayl ka dhigaya markaas qayb badinaysa oo electricaas oo badinaysa hawadii badinaysa waxay sameynaysaa meesha ay ka di'i lahayd marka la joogo baa la didinayaa diyaaradahaas gadaal laga gelinayaa waa la didsanayaa daruurta buur humaag ah buur bug ah la abuurayaa buurahaas oo bugta ah oo la sameeyo waxaa lagu xardhayaa cagaar iyo kanaalo beenbeena oo biyo beenbeena ah oo wiliq leh markay aragto daruurtu markay aragto qaabkaas markay aragto daruurta markay aragto buurtaas oo buur dihin ah ay aragto iyo dhul kacsan oo beeno humaaga loo abuurayaa way soo raacaysaa waxay noqonaysaa sida hal igar maqaarka loo xiray oo kaleeto halkaasaa baana la soo didinayaa waana buurtaasna way soo jiidanaysaa way hagaysaa si u wado meeshii la rabaa laga degsanayaa oo sidaas tartiib looga degsanayaa wayna dhacdaayo wax maalin kasta Soomaaliya marka sanad walba almost sanad kasta way ku dhacdaa mesela hal dawlad baa marka jirta oo xoogaa awoodaas leh run ahaantiina dawladda saddexaad ee adduunka ugu badisa roob abuuradka iyo roob dhicidda iyo waxaan oo climate modification iyo climate engineering iyo waxaas oo dhan ku taf ah dawladdaas marka waxay samaysaa meesheedii ka degsataa tiro ka 3-4 jeer waxaa dhacday inuu daadad qaadeen ayagoo weligood aan dhulkooda roob ka di'inin roob aan laga aqoonin waxaa dhacday roobabkii inay daadad ay qaadeen ayaga sanadkii hadeer ahaa sanadkii 2017 waana marka abaaraha ugu badan annaga ay nagu dhacayeen ayagana daad baa qaadayay ayaguna roob caan kuma ahayn ee buurahooda gubtay annagana waxaan roob baan caan ku ahayn meelihii Soomaaliya meelo waxaa jiray hadda 60-70 sano ka hor baraf kabdo la xiran jiray dad kabday huwan jireen barafna u soo dhici jiray dhaday iska dhihi jireen waa dhul baraf waa gaalkacyo agaarkeeda ilaa iyo hobyo iyo halkaas baraf baa ka di'i jiray waxa dhacday marka dhulkii noocaas ahaa
waxaa ka dhacday hadda sanadkii 2017 marka ay taas nagu dhacaysay waxaa magaalada Camaaro la dhaho iyo Baxdo iyo waxaa lagu arkay daruur inta soo degta dhul ku soo degtay haddana hal kala fuqi weyday baa loo arkay xunba noqon weyday xataa marka waxaa sababayay marka roobkan la didsanayay oo la dhacayay baa waxa kimikooyin badan baa la isticmaalayay kimikooyinkii baa markaas roobkaas ka dhigay mid inta biyihii laga miirtay qolofkii halkaa lagu soo tuuray ama asagu soo dhacay kadibna dadkii waa cudurro badan iyo xoolihii dadkii oo ku dhaceen